بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن داوديال ميل والبو aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka oo aynu diradda ku saari doonno warbixin xiiso badan isla markaana ku saabsan Mareykanka oo si rasmi ah u shaaciyay in uu la dagaalami doono Shiinaha haddii uu isku dayo mar kale in uu weeraro ku qaado Taiwan. Barnaamijka ayaynu warbixintan ku eegi doonaa waa goormeese waqtiga Shiinaha uu qorsheynayo in uu qaado weerarka Taiwan muxuuse Shiinaha ka bartay dagaalka Ukraine. mar kale soo dhawaada haddaad nagu cusub tahay daawada nagu soo biir channelka subscribe inoo saar furo gambalelka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya mahadsanid inkasta oo Mareykanka iyo Shiinaha ay ku dagaalamayaan dagaal qabow oo ka dhashay feelal badan oo u dhaxeeyay haddana murankooda ku saabsan Taiwan ayaa ah arrinka kaliya ee laga yaabo in ay ka dhalato iska horimaad hubeysan sidaasi darteed Taiwan waxaa lagu tilmaamaa meesha ugu khatarta badan adduunka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dalkiisa uu difaaci doono Taiwan haddii uu Shiinaha ku duulo taas oo ka hor imaanaysa mowqifka rasmiga ah ee Mareykanka oo loo yaqaano siyaasadda madmadowga istiraatiijiyadeed ee jasiiradda. hadallada Biden ayaa yimid kadib wareysi uu bixiyay fiidnimadii Axadda 60 Minutes. martigeliyaha barnaamijkaasi Scott Biden waxa uu weydiiyay madaxweyne Biden haddii ciidamada Mareykanka ay difaaci doonaan Taiwan. madaxweynaha ayaa ku jawaabay haa haddii dhab ahaantii uu dhaco weerar aan horey loo arag si ka duwan Ukraine si ay u cadaato mudane ciidamada Mareykanka iyo sidoo kale ragga iyo dumarka Mareykanka miyay difaaci lahaayeen Taiwan haddii ay dhacdo duulaan Shiineesa. Pele ayaa sidaas yiri. Biden waxa uu yiri haa waxaana uu hadalkiisa ku daray Taiwan waxa ay samaysaa go'aamo u gaar ah oo ku saabsan madax bannaanideeda uma dhaqaaqeeno kumana dhiirigelinayno inay madax bannaanaadaan taasina waa go'aankooda. isla mar ahaantaana Biden waxa uu ku celiyay taageerada maamulkiisa siyaasadda hal Shiine ee Washington ay aqoonsan tahay laakiin isla mar ahaantaana waxa ay xiriir aan toos ahayn la leedahay Taiwan. xeerka xiriirka Taiwan ilaa 1979 waxa uu Washington ku waajibinayaa in ay ka caawiso u diyaarinta difaaceeda. hadallo waqti adag hadalka Biden oo aan ahayn kii ugu horeeyay ee noociisa ah ayaa ku soo beegmay xilli xiriirka Washington iyo Beijing uu ku jiro xiisad aan hore loo arag kadib markii afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka ee Nancy Pelosi ay booqatay Taiwan horaantii Agoosto. Washington ma aysan saxiixin heshiis isdifaacid ah oo ay la gasho Taiwan laakiin waxa ay siisaa hub badan oo horumarsan. arbacadii guddiga xiriirka dibadda ee golaha guurtida u qaabilsan xiriirka dibadda ayaa ansixiyay hindise sharciyeedka siinaya jasiiradda 4.5 bilyan oo dollar hub 4 sano ee soo socota xilli Taiwan lagu tilmaamay inay tahay xulafo aan NATO ahayn. dhinaca kalena madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la kulmay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin Khamiistii oo uu ka qayb galay shir madaxeedka ururka iskaashiga ee Shanghai xilli ay sii kordhayso cabsida laga qabo gudaha Mareykanka in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu ku dhiirigeliyo Shiinaha in uu weeraro Taiwan iyadoo laga baqanayo in xiriirka labada dal uu noqdo mid militari ahaan sii xoogaysta. khibradda Ukraine iyo sirta Taiwan. jasiiradda Taiwan waxay u jirtaa in ka yar 160 kiiloomitir dhulka Shiinaha. Beijing waxay u aragtaa gobol ka goostay oo ay dib u soo ceshato xitaa qaab awood ah halka Washingtonna ay ka taageerto Taiwan ciidan ahaan oo ay siiso hubkii ugu dambeeyay si ay uga hortagto Shiinaha isla markaana la qaato siyaasadda hal Shiine taasoo ka hor istaagaysa inay aqoonsato madax bannaanida Taiwan. dagaalka Ruushka ee Ukraine ayaa dib u soo cusboonaysiiyay doodda caasimadda Mareykanka ee ku saabsan jawaabta Washington ay ka bixin doonto haddii Shiinaha uu qaado tallaab la mid ah weerarkii Ruushka. maamulka madaxweyne Biden oo ka cagajiidaya in uu qaado tillaabooyin uu Ruushka u arki karo mid sii kordhaya sida in ciidamada Ukraine la siiyo diyaarado dagaal shakiga ayaa kordhaya haddii Washington ay taageerto Taiwan haddii ay la kulmaan xaalad la mid ah tii Ukraine. hadalka madaxweynaha Mareykanka ee ku saabsan in dalkiisa diyaarka u yahay in uu jasiiradda Taiwan ka difaaco ciidan ahaan duulaan kasta oo Shiinaha ku soo qaado ayaan ahayn kii ugu horeysay ee noociisa ah. booqashadii uu ku tagay Japan bishii May ee la soo dhaafay Biden waxa uu sheegay in Washington ay diyaar u tahay inay jawaab militari ka bixiso haddii ay dhacdo weerarka Shiinaha uu ku qaaday Taiwan. intaasi ka hor Oktoobar 2020 Biden waxa uu ka jawaabay intii lagu jiray kulan uu soo qaban qaabiyay CNN su'aal ku saabsan sida Mareykanka diyaarka ugu yahay inuu difaaco Taiwan haddii uu Shiinuhu soo weeraro waxaana uu yiri haa waxaana saaran waajib ah inaan sameeyno sidaas. falanqeeyaasha qaarkood ayaa ku doodaya in Washington iyada oo u mareysa jawaabta ay ka bixisay Ruushka ay tustay Shiinaha waxa laga filayo haddii Beijing ay isku daydo in ay ku duusho Taiwan. dhankeedana agaasimaha sirdoonka qaranka ee Mareykanka Avril Haines ayaa aaminsan in Shiinaha uu mar horeba uu ka cagajiiday in uu gudaha u galo Taiwan marka loo eego sidii uu dhowr bilood ka hor ahaa.
dhageysiga guddiga sirdoonka ee golaha shacabka 8 Maarso, Avril Haines ayaa waxa ay sheegtay in falcelinta Mareykanka ee duulaanka Ukraine waxay u badan tahay inay xoojinayso aragtida Shiinaha ee ah sida ay muhiimka ugu tahay in aan tallaab kasta oo military ugu qaadi doono Taiwan. Shiinaha waxa uu aad uga xumaaday midnimada uu arkay ee ka dhaxaysa Yurub iyo Mareykanka, gaar ahaan cunaqabateynta lagu soo rogay bishii Maarso 2021. Admiral Philip Davidson, taliyihii hore ee ciidamada Mareykanka ee gobolka Indo-Pacific, ayaa uga digay xubnaha Koongareeska in Shiinuhu uu ku duuli karo Taiwan 6 sano ee soo socota. Mabda'a mugdiga. Maamuladii Mareykanka ee kala dambeeyay waxa ay qaateen mabda'a madmadowga istiraatiijiyadeed ee Shiinaha labadan sababood dartood. Marka hore, la'aanta caddeynta duruufaha faragelinta Mareykanka, taas oo ka dhigaysa qorshayaasha military Shiinaha inay ogaadaan xuduudda la macaamilka Mareykanka. Madmadowga istiraatiijiga ah ayaa ku qasbay Beijing inay u qaadato in Washington ay soo faragelin doonto haddii ay dhacdo weeraro ama isku day lagu doonayo in lagu weeraro Taiwan. Inkasta oo isu dheelitirka awoodeed ee gobolka marinbiyoodka Taiwan uu isbedelayo dhinaca Shiinaha, haddana khubaradu waxa ay rumaysan yihiin in Beijing ay weli ka fog tahay inay yeelato ciidamo horumarsan oo awood u siinaya in ay ku guuleysato qabashada Taiwan. Midda labaad, Mareykanka waxa uu aaminsan yahay in madmadowga istiraatiijiyadeed uu yahay mid ka hortagaya kuwa laga yaabo in ay isku dayaan inay kaga dhawaaqaan madax bannaani gudaha Taiwan. Washington waxa ay taageertaa oo kaliya madax bannaanida jasiiradda. Ku dhawaaqida madax bannaanida rasmiga ah ayaa hubaal ah inay horseedi doonto dhibaato Taiwan iyo xifaaltanka Mareykanka iyo Shiinaha. Taiwan waa goobtii ugu dambeysay ee xifaaltanka ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka. Inkasta oo Mareykanka uusan ku xirnayn heshiis lagu difaacayo Taiwan, haddana weerarka Shiinaha waxa uu tijaabo u noqon doonaa awoodda military ee Mareykanka iyo awoodda diblomaasiyadeed iyo midda siyaasadeedba. Inkasta oo labada quwadood ee nuclear-ka ahi iyo kuwa ugu dhaqaalaha badan adduunka ay dagaal qabow ka dhex wadaan faylal badan oo u dhexeeya, haddana murankooda ku saabsan Taiwan ayaa ah arrinta kaliya ee ay u badan tahay inay iska horimaad hubaysani ka dhex dhaliso. Haddaba, majalada caanka ah ee The Economist ee ka soo baxda Ingiriiska ayaa dhowaan Taiwan ku tilmaantay meesha ugu khatarta badan adduunka, sababta oo ah waxay dhibaato weyn ku haysaa Shiinaha iyo Mareykanka oo wada jira. daawada fadlan aragtidaada qaybta hoose commentiga inoogu reeb. Waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay, channelka subscribe saaro, furo gambalaalka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya. Mahadsanid. Aragtidaadu waa muhiim, qaybta hoose commentigana inoogu reeb. barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka wanaga intaas. barnaamijka mid ka xigay tan ku kulmi doona. Nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.